diyaargarowgii ugu dambeeyay doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee 4 sano soo socota ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada Muqdisho xilli dadweynaha Soomaaliyeed dhagta u taagayaan cidda noqonaysa madaxweynaha tawanaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya ilaa 39 musharax oo qaar ka mid ah ay tanaasuleen ayaa u taagan doorashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana ku jira kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda Soomaaliya iyo madaxweynayaal soo qabtay xilka ugu sareeya dalka kuwaasoo dhammaantood rajeynaya inay guuleystaan waxaa sii xoogaysta dadaalada ay wadaan musharaxiinta ay ku raadinayaan codadka xildhibaanada ayadoo xildhibaanaduna ay isku marayaan musharaxiinta ugu xoogan oo marba ay taagiin xarumaha ololaha musharax gaar ah qaar ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku soo bandhigayay magaalada Muqdisho dowlad siyaasadeed taasoo hadalweyn ka dhex abuurtay bulshada Soomaaliyeed guddiga isku dhafka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee qabashada doorashada madaxweynaha ayaa sheegay inay diyaariyeen wax walba oo loogu talagalay isla markaana loogu baahan yahay si loo dhameystiri lahaa shaqada loo igmaday taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa xaqiijiyay in guud ahaan magaalada Muqdisho lagu soo wareegay bando ku aadan xaqiijinta ammaanka doorashada madaxweynaha iyo sidii loogu hortagi lahaa inay dhacaan falal amni darro sidoo kale taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa heegan buuxa galiyay ciidanka booliiska isla markaana ay xiri doonaan dhammaan wadooyinka caasimadda soo gala xaaladda ayaa mid saacad ka dambaysa si yeelanaysa xamaasad waxaana markaas abuurmaya isbeesiyo cusub taasoo xaaladda si degdeg ah u bedeli karto maalinta beri waxaa la filayaa in xarunta afisyoone ee magaalada Muqdisho ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya